السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel walba oo joogtan waxaan idin leenahay arooryo suuban qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida shirarkii dhaxdhaxaadinta ee loo hayay labada qowmiyadeed ee Soomaalida iyo Canfarta oo gabi ahaanba burbur iyo xaalka oo cirka isku sii shareeray sidoo kale waxa la soo sheegayaa in ay dagaaladii la isku horfadhiyay magaalada Garbaciis ay qarxi karaan waqti kasta maadaama oo shirkii burburay madaxweynaha qowmiyadda Axmaarada ama dowlad deegaanka Axmaarada ayaa waxa uu sheegay mar uu xalay aqoon-yahanka la kulmay iyo culimada diinka in ay dagaalka safka hore soo galaan sida ay qowmiyadda Tigreega culimadoodii iyo aqoon-yahankoodu majiida hore ugu jiraan sidoo kale booqashadii shalay ay labada dowlad deegaan iyo dowladda federaalku ay booqatay jiida hore dagaaladu halakeeyeen ayaa waxa la soo sheegay wax is-afgarada iyo wax ay meesha ka soo saareen baynu jirin kibi ahaanba ay sawirro u soo qaateen oo dib iskaga soo laabteen sidoo kale qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah dagaalo xooggan ayaa laga soo sheegaya inta u dhaxaysa magaalada Gondar iyo Dabaade oo ka wada tirsan deegaanka Axmaarada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan marka hore taariikhdu waxa ay ku beegantahay 4 bisha 9 2022 daawadayaal sidii aad wada ogsoonaydeen dagaal xooggan ayaa waxay u dhaxeeyeen maalmihii la soo dhaafay Soomaalida iyo Canfarta dagaaladaas oo ka socday galbeedka gobolka City ayaa ugu yaraan ay ku barakaceen 10 kun oo qoys iyo intaayeenka boqolaalka badan oo kaleete dagaaladii halka ka socday ayaa waxa la soo sheegay in maalmihii ugu dambeysay ana wax dagaal ah dhicin oo la isku horfadhiyay magaalada Garbaciis sidoo wada ogsoonaydeen shalay waxa booqday magaalada Garbaciis wafti 3 jaha ka socda dowladda federaalka iyo labada maamul ee dagaaladu halakeeyeen waftiyada ayaa waxay soo indheeyeen meelaha lagu kala sugan yahay iyo dadka xaalku meesha uu yahay sidoo kale shir ayaa ka socday magaalada Hawaasi la shalay oo lagu dhaxdhaxaadinayay labada qowmiyadood shirka ayaa waxa la soo sheegayaa in ay dowladda federaalka iyo maamulka Canfartu ay ayagu la yimaadeen war cusub oo in Soomaalidu meeshaasi ka filaynin shirka ayaa waxa la sheegayaa gabi ahaanba inuu burburay oo laguna kala tagay qolada kalena ay gacanta ku tagtay dowladda federaalka iyo maamulka Canfarta isku dhanaya waxay soo jeediyeen inay dowlad deegaanka Soomaalidu gabi ahaanba ka baxaan saddexda magaalo maamulkooda looga dambeeyo maamulka Canfarta shacabka Soomaaliduna ay dad Itoobiyaan ayeen waqti kastana ay ku soo laaban karaan magaalooyinka deegaanana karaan dowladda federaalka ayaa gabi ahaanba waxay la safatay maamulka Canfarta iyadoo in badan lagu eedeynayay inayna dowladda federaalku dhaxdhaxaad ka ahayn waxa u dhaxeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Canfarta waxa la soo sheegayaa shirka inay la soo fadhiisteen Canfartu dhulka anaga iskale Soomaalidu way nala deganaan karaan Canfartana way ka tirsanaan karaan hase yeeshee marama aqbalayno inay dhulkaasi dhul Soomaaliyeed yahay dowladda federaalka ayaa iyaduna sidoo kale waxay ku raacday maamulka Canfarta hadalkoodii Soomaalidana ugu baaqday sida ugu dhaqsaha badan inay saddexda magaalo iskaga baxaan dadkii shacabka dhulka ka barakacayna la soo celiyo amnigoodana la damaanad qaadayo kana tirsan yihiin qowmiyadda Canfarta hase yeeshee dowladda deegaanka Soomaalida oo muddo ay dhaxda xidhatay una istaagtay dadka Soomaaliyeed sidii loo badbaadin lahaa ama cadawga looga dulqaadi lahaa ayaa waxay ku adkaysatay inayna meesha marina ka bixi karin dhulkana uu yahay dhul Soomaaliyeed sidaad wada ogsoonaydeenba waftigii shalayto aaday deegaankaas dagaaladu ay halakeeyeen waxa kamid ahaa madaxa xisbiga barwaaqo ee Soomaalida Maxamed Shaale iyo wasiirka amniga ku xigeenka labada nin ayaa shalay waxa la sheegay dadkii shacabka ay halkaas ku sugnaa inayna waxba meesha ka ahayn daba socdeen waftiga Axmarta iyo federaalka waxay dhahaan ay madaxweynuhu gundinayeen hase yeeshee qaybtii u matalaysay shirka Hawaasi dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaad moodaa inay guulo waaweyn soo hoyeen oo inay diideen wixii meesha lagu keenay ayagoo loogu baaqay inay saxiixaan sida ugu dhaqsaha badan dhulkaasi inuu yahay dhul Canfareed shacabkana lagu celinayo shacabkuna ay ka tirsan yihiin qowmiyadda Canfarta sidoo kale madaxweynaha Axmaarada mar uu xalay la hadlayay warbaahinta ama aqoon-yahanka dowlad deegaanka iyo culimada diinkooda ayaa waxa uu sheegay in ay dagaalka ka soo qayb qaataan si mutadawacnimo iyo si practical ah ugu soo qayb qaataan madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ay qowmiyadda Tigreegu dagaalka u kala hadhin culimadooda iyo aqoon-yahankooduna jiida hore ay ku jiraan
ayagoo waxa uu sheegay kitaabkoodina dhanka midig ku wata bidixdana qori ugu jiro. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay shacabka axmaaradu hadday waqtigan iska difaaci waayeen qoomiyadda Tigrayga in ay tahay maalikii axmaar maqalkeed iyo muuqeedaba ugu dambeysay. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay Tigraygu ka go'an tahay inay qoomiyadda axmaarada gebi ahaanba baabi'iyaan dhulkana ay la simaan dib dhammaan axmaar looba maqal. sidoo kale madaxweynaha axmaarada wuxuu ugu baaqay shacabka la degan qoomiyadda axmaarada ee ka tirsan dhulka axmaarada in ay u istaagaan la dagaalanka Tigrayga. qoomiyadii looga shakiyo in ay Tigray u gacan haadinaysana inay gebi ahaanba cagta la marin doono sharcigana la horkeeni doono. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay qoomiyadaha looga shakisan yahay inay Tigrayga hoosta kala shaqeynayaan inaanu ognahay meesha ay xaalku u socdo wax ay ku hadaaqayaan inaan garanayno. hase yeeshee wuxuu sheegay madaxweynuhu inaan la iskaga hadhi doonin waxa ay qoomiyadahaasi ku jiraan sharcigana la horkeeni doono. lama garanayo xaalka Itoobiya meesha uu ku dambeyn doono maadaama ay ka socdaan dagaallo xoogan jihooyin badan jabhado badan ay ka dilaaceen dowlad deegaanada iyo bartamaha iyo bariga dalka Itoobiya. qoomiyadda Tigrayga ayaa waxaad moodaa inay maalmihii ugu dambeysay ay isku sii ballaarinayso dhul badan oo dhulka axmaaradaha ayadoo sidoo kale la soo sheegayo inay dagaallo xoogan oo lagu riiqmay ilaa shalay ilaa xalay ay ka socdaan hareeraha magaalada Gondar. dhulka ay dagaaladu ka socdaan ayaa waxaa lagu sheegay magaalada Gondar iyo Dabaad inta u dhaxaysa oo dhul ballaaran oo deegaano badan dhulkaasa. dagaaladan ayaa waxaa la soo sheegayaa inaan loo kala kicin shalay ilaa xalayto rasaasta iyo hubka huwankana laga maqlay magaalada Gondar. kooxda TPLF ayaa maalnimadii shalay waxay weerar ku soo qaaday magaalada Dabaad oo wax yar u jirta magaalada Gondar halkaas oo isdifaacid weyn kala kulantay. hase yeeshee ciidamadii dowladda lama sheegin inay meeshaas ka baxeen iyo in kale. sidoo kale dagaallo xoogan ayaa waxaa laga soo gobolka Canfarta. kooxda TPLF ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ku hadaaqaysay in ay dagaal weyn ku qaadi doonto gobolka Canfarta gebi ahaan ay cagta marin doonto ciidamada jooga magaalada Sameer ee caasimadda Canfartana ay gacanta ku dhigi doonto maamulka Canfartana ay gebi ahaan kala diri doonto. kooxdan TPLF oo taageedkeeda uu yahay inay qabsato caasimadaha Canfarta iyo axmaarada ayaa waxaa la soo sheegayaa in ayna sida ay ku qabsato ay adkaani doonto maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan iyo maamuladii dowlad deegaanada oo dhan. hadday TPLF u hirgasho inay qabsato labada maamul ee waxaa la soo sheegay wax dowlad federaal inay sii shaqeyn doonin maxaa yeelay halka laga difaacaya magaalada Addis Ababa waa caasimadda Baxardaar ee gobolka axmaarada. sidoo kale waxaa la soo sheegayaa inay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee ku sugan magaalada Garbaciise ay isdiyaariyeen mar kalena loogu labaad isdiyaariyaan kooxda Canfartana ay ka xoreeyaan dhulka maadaama shirkiga barburay wax labada dowlad deegaan ka dhaxeeyana una hadda jirinba. waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe wacan. assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.